deegaanka anagu ka nimid duunya kuma noola kumana harin baan malaynaya wax dhumay ma ahayn wixii kale intaanay soo galay deegaankan ku nimid anaga deyn ku soo guuray wallahi deyn baan ku soo guuray ariga kala beer baa la dhacay ariga ninkii lahaa in laga dhigo isagoo waxna yaaliyaalin aan toosinayno waxna taagan yihiin inuu in laga dhigaa la dhacay dad baa gacanta ku soo wardan naga dagaariga meel kasta waxa laga keen isaga soo ciiday laga siin doonaa dadku wuxuu ku soo guuraa wuxuu ku soo badgaluulaa wuxuu ku soo cid galuulaa biyo ma ahay meesha wax jira ma jiraan waxba laga sugi maayo dadkaasi dhibaatooyinka wada nin waa u jeedaa abaarayso 400 kilomitir nin soo raray 400 kilomitir dhibaatada waa way muuqataa 400 kilomitir nin geedi raray oo rati raray ama lugeeyay dhibaato wada mana haddii caruur tahay haddii xoolo tahay 400 kilomitir baynu meeshan ka soo guurnay jirta haddana meeshan aan fadhino ay u jirtaa waxaan ka soo guurnay hawdkaas koro Itoobiya waliba dhinaceeda shaa baawur baan ku soo guurnay markii dambana awur baan ku soo guurnay haddana wadankan baanu nimid nimcada Ilaahay keenay iyo tolka yaa noogu nimid waxaan ka soo guurnay magaalada Garowe agagaarkeeda ka soo guurnay ummad badan oo reer miyi ah oo reer guuraaya ayaa dhulkaas isugu yimi ninkii nugaal ka soo guuray iyo kii hawd ka soo guuray iyo ninkii caduun ka soo guuray garaacadkii laga soo raray tawfiiqkii ka soo guuray kii ka soo guuray bacad weyne ummad tiro badan ayaa halkaas ugu timid waxaa jirta inaan 2 hameen 3 hameen aan meel joogin shayna aan waxba la isku soo qaadin meeshaas biyo awgeed la'aantood ceel ma gaartid meesha ka timid ma gaartid soo tan ma gaar meel xad ku hakatay wax biyo male nafaqo male geeda ku doonantana ma haysatid saas awgeed baa marna la iska nasanaya marna leeyahay war meesha aan gaarino marka dhibaatadaas wax mid hadda aan soo koobi karo ma ahan oo wadan u qabsato waa dhibaatooyin fara badan waa laakiin muhiimada ugu badan in dhowr hameen aan la arag way waxba 22 hameen baan waxaan soo ahayn hayaa awr arrinta ugu weyn oo hadda meeshaan ka taagan waa biyo la'aan weyn taasaa ugu sii daran dadku gaadiid ma wataan riti ma wataan dameer ma wataan gaari ma wataan gaari baa meel ku daadinaya bartaa looga tegaya waxay dhaansadaan ma leh oo waxay ku hoydaan mar aqladoodii iyo waxoodii waa ka soo guureen dadka dayac tiro badan bay qabaaneen dadku ilaa noobir bay tageen waxay tageen sool bay tageen bari kale tageen waa sii guureen waa soo guureen waa lagu waa hiili waa guuridan dambe oo waa baqtiyeen waa kuwa xoolaha yowday maxaa laga jareenaya kuwa waxba laga jareenaya dadkaas way baahan yihiin dawlad Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay u soo gurmadaan dadkaas dayacan oo haddii Ilaahay ku ron yahay meel banta lagu daadiyo laga tagayo gobol galmudug baa soo guudhay waxa soo guudhay haddii Ilaahay ku ron yahay Puntland meesha waa la isugu yimi dadka halkaan alxamdulillah xoogaaga ay heleen waa ku shukriyeen waa ku xamdiyeen walaalaha yagan u nimidna limiyaan iyo nabad baan ugu nimid iyo soo dhaweyn sharaf leh intii tabartoodana ay aad iyo aad u dagaalameen dad waxa jiray soo guuro meelaha baawur dhigtay oo meelay ku waxay ku guuraan xiro ku tagaana waayay wixii ay dhaansan lahayn waayay lacaga loo ururiyay booyada loo dhaashay waxba loo wixii qof walba tabartiis hadda dadku way halgamaya laakiin waxaan rabnaa aad iyo aad loo taageero oo loola tabar galaan rabaa dadka waxa way xoogaa anaga oo adu kaliya daayba la isugu yimi dadkii way dhiban yihiin daaq wax kasta hal helo wax yar oo aan macno lahayn baa la helay biyo la'aan iyo dayac dad badan oo baahaysan raashinka aan gadan karin gaadiid aan lahayn wadooyinka reerka wax kaga leexiyaan waayay aad iyo aad bay u tiro badan yihiin dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda waxaan ugu baaqaynaa tuburucaad baa la rabaa oo sidii degdeg ah baan u rabnaa wargaarsiin intaas aan ku bixinaynaa xoolihii way baqtiyaan dadku waxa weeye iyaguna way ka daba dhimanayaan ninka haddii xoolihiisu dhintaan dee noloshu waa xoolaha weeye haddii dadkii xooluhu ay dhintaan oo dhammaadaan dadkuna way ka daba dhimanayaan haddeerna baahi badan baa jidha oo dadku ay aad iyo aad u baahan yihiin raashin la'aan baa jidha biyo la'aan baa jidha labadaa haddii la waayan dadku muxuu ku noolaanaya walaa wuxuu ku noolaanayaa ma jirto